أنا كنت ماشي حواجي كذي هلا بساعتين ما جبت سميرة محمد waxaan ku magac dheerahay Samiira Soomaal waxaan ahay maamulaha managerka Elite Hotel. Elite Hotel waa hotel service badan laga helo wax alaalo wuxuu qofku u baahan yahay oo nasashiyo ah haday noqoto dhinaca cuntada haday noqoto dhinaca service-ka wax walba oo complete ah ayaa laga helaa halkan maxaa kamid marka waxyaabaha laga helay adigoo hal iyo laba kala qaadaya maadaama ay ku fiirsanayaan dadweyne kala duwan oo dalkii dibadiisa kala joogo runtii anaga waxaan ku dadaalaynaa service buuxa inaan siino qofku markuu noo yimaado asagoo oo wax walba helay haday noqoto cunto haday noqoto dessert macmacaana kala duwan haday noqoto cabitaanadii wax walba buuxa waxa kale oo laga helayaa qolal shirar ah waxa laga helayaa bilic qurxoon oo dhinaca badda u jeeda waxaad ka helaysaa massage-kii waxaad ka helaysaa qurxintii dumarka qurxinta ragga waxaad ka helaysaa barxado waaweyn oo bilic qurxoon oo qofku la fariisto lagu sheekaysto wax alaala wixii service ku saabsan dhinaca nasashiyaha waa laga helayaa maxaa idinku dhaliyay inaad halkan ka dhisaan hotel maadaama ay ku yaalaan hoteelo kale runtii xeebta Liido waa xeebaha xamar ugu bilicda qurxoon oo dadku ay u soo fasax tagaan waana looga baahan yahay hoteelo badan waxaan rajaynaynaa dadka xamar jooga dalka gudihiisa jooga dalka dibadiisa jooga inay halkaan yimaadaan hoteelo tiro badan oo kalena waa looga baahan yahay ma isleedahay lacagihii la geliyay soo saaraya adinkoo ka eegay dhaqaalaha dalka dabcan uu soo saaraya anagana waxaan ku dadaalaynaa sidii aan kusoo jiidan lahayn dadka dalka gudihiisa jooga iyo dadka dibadiisa jooga inay helaan service buuxa والله رجد آدي آدي وفي عن تهاي أنا جنا وحن كم بدنا هاي دتك كود ذالا إن أي دلك مال قشتان أنا وحن كلها تلين لها دلك جوديس دتك جوجا دتك كم مقام بيني وطنك لمال جليا ودلك وحاسك لوا نجا وحلا جرا ويني مال جليان أو خرم مريان ونجا. سيدا كسر عشان شقالة يعني شقياني. شقالة وحن كسر حلنا يعني نجا أوفيرنا إن دلني رضا جامعتك بحدا شغال عنده ودنك كجرتا waxaan ku soo shaacinay social media waxaan ka dooranay dhalinyaro aad iyo aad u dadaalaysa